Welcome back guys. Meel walba joogtaan soo dhawaada. Magacaygu waa Maax kaasoo doonaya maanta inaan la shargareeyo cryptocurrency-ga. Okay. This is my Facebook page kaasoo ay la soo xiriiri karto haddii aad doonayso more information. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo 3 ways to earn money with a Bitcoin basics. 3 qaabood aad ku heli karto dakhli adigoo markaasi isticmaalayo Bitcoin. Okay. 3 way ugu fudud aan doonayaa maanta inaan ka hadlo. 3daas way waxay kala yihiin waxaa u baahan tahay disclaimer. Intaan ugu gudagelin ka hor disclaimer waxaan sheeganaa the only invest what you can afford to lose. Bitcoin markaad doonayso ama cryptocurrency inaad maalgashato waxaad u baahan tahay inaad waxaad maalgashanayso ay tahay wax markaas aanan lose garanaysid. Haddaad lose garaysana aanan dhibaato ay kugu haynin. Dasmin waxaa ka wadaa haddii ay tahay lacagta oo bill ama sidoo kale lacag markaasi for life in aad doonayso maalintii inaad ku noolaato daily useska ka mid ah waxaa la soo aadan cryptocurrency. Sababtu waxay tahay cryptocurrency is a volatile. Okay. waxaan rabaa marka inaan ka hadlo 3 basics oo ugu muhiimsan markaad doonayso inaad maalgashato Bitcoin sidoo kalena aad dakhli ku helayso. 3daas qaab waxay kala yihiin mining inaad Bitcoin aad qodo haddaan awooddaas ama skillskaas aan lahayn cloud mining aad ka faa'iidaysato cloud mining service-ka. Qodobka labaad waxa waaye investing with a Bitcoin or a Litecoin adoo markaas maalgashanayo Bitcoin ama sidoo kale Bitcoin wixii kasoo haro loo yaqaano alternative coin. qaybta saddexaadna waxa waa big one 10% of roll mid ka mid ah iibso 10% lacag markaas adigu aanan dhib kugu hanin aan ka walwaleynin hadday tahay lacagaha markaas kusoo galayo weekly ama monthly kusoo galayo. Tusaale kale $100 haddii lacagaha kale madax banaan yihiin daas waa lacagtaasi aad doonayso inaad ku maalgashato cryptocurrency-ga 10 ka mid ah ku iibso mid ada kalena currency markaas jiro ugu iibso. Okay. midda saddexaadna waxa waaye oo markaas raacsan avoid analytic analysis. waxaa ka fogaataa dadka markaas analyze gareeya oo dhahayaan Bitcoin is a time crash and noqon lahayd waaye iyo something wax la mid ah aadana gadaal lagu hadli doono. Okay. haddaan guda galno marka mining waxa waaye inaad Bitcoin-ka markaas aad qodato sida sawirka inoo muuqdo. Bitcoin marka la doonayo waa adag tahay inaad soo saarto very difficult. waxay ka baahan tahay skills knowledge ka baahan tahay inaad soo qorto iyadoo markaas la isticmaalayo software oo free ah mathematical improvement iyo markaas la sameynayo. haddii marka ay kugu tahay hard ama kugu adag tahay waxaa ugu faa'iidaysan karaa markaas aad qodi karin cloud mining software-iska ah oo markaas company qaar oo sameeyaan mining ayagoo markaas ah big farms oo leh kuwaas oo kamid yihiin marka inay isticmaalaan supercomputers ah kaasoo markaas ay soo saarayaan. ugu caansan waxaa ka mid ah cloud mining kaas service ka sameeya Bitcoin Club iyo Expert Asset oo aad la shirkado doono. Okay. aadna marka jump aan tagno Expert Asset waa company sameeya forex trader ka ah sidoo kalena Bitcoin mining ah sameeya. haddii aad doonayso more information you can read oo ka akhrisan kartaa haddii aad doonayso macluumaad badan. laakiin aan imaano qaybta mining-ka ah ana isla daawano mining maxaa la dhahaa iyo qaabka mining loo sameynayo big farms-ka oo markaasi soo saarayo maadaama u baahan tahay mining marka soo saaramo electricity iyo kala in la control. Okay. the CEO of Expert Asset Patrick meeshii lagu soo saarayo waaye mining-ka oo markaas la qodayo oo Expert Asset cryptocurrency-ga. Yes. waxay hayaan skillskii iyo knowledge oo markaas ku soo saari karaan teamkoodana diyaar u yihiin inay markaas sida ugu macquulsan ee markaas faa'iido ay soo saaraan. waxaa kaloo ka mid ah Bowman House ayagana cloud mining service-ka sameeya daily profit-kaas markaas soo saara. guys intaas aan ku ekaano maadaama wax ka ogaanay sida mining-ka markaas loo qodo iyadoo equipment la isticmaalayo. qodobka labaad ugu faa'iidaysan kartid marka haddii lacala marka aad Expert Asset iyo cloud
mining service oo BitCloud oo kale aan invest garaysato daily waxay ku sii doonaan percentage markaas adigu aad faa'iido aad ku heli karto si markaas aad growing aad u samayso dakhli aad u hesho qodobka labaad dakhli aad ku heli karto waxa waaye investment Bitcoin maadaama Bitcoin aan qodan karin skillskaas iyo knowledgegaas aan lahayn qodobka labaad ugu faa'iidaysan karto waxa waaye investment Bitcoin inaad maalgashato ama sidoo kale alternative coin waqti xaadirka aan la hadlaa Bitcoin waxay samaysay crash oo hadda wuxuu joogaa pricekeeda marka loo eego Bitcoin haddaan fiirino waqti xaadirkan priceka markaasi uu joogo for Bitcoin dib ugu soo noqono inta uu charge soo saaray unique marka waxa u baahan tahay marka inaad ka faa'iidaysato Bitcoin kaas iyo sidoo kale alternative coin-ka you need experience ina xoogaa experience khibrad u leedahay oo markaasi qaabka markaas aad u iibsan karto Bitcoin oo kale si aad ula soo aado kale investing-ka other alternative coin markaas aad u iibsan karto hadii aan wax badan ka aqoonin please video kale hore aan diyaarinaa jirnay dib u daawo si macluumaad aad u ogaato hadii aad tahay qof cusubna please subscribe my YouTube channel-kayga laagna sidoo kale saar dib u daawo soo noqon marka Bitcoin price-ka waqti xaadirkan uu joogo bara Bitcoin waa 10,800 waa 10,819 ayuu joogaa pricekeeda February 16 wuxuu ahaa 8,000 uu ahaa maadaama crash uu ku dhacay oo markaas la soo weynayo Chinese New Year iyo dad badan oo markaas investors ah oo markaas iibsadeen qaar ka mid ah waxa ay markaas u maalgashteen okay oo soo noqon marka unit marka waxa baahan tahay markaas ay haysan kale 10,000 aysan waxa baahan tahay marka aad invest ganacsato alternative coin markaas ka soo haray tusaale kamida Ethereum oo kale 969 waaye waxaa ka mid Ripple oo kale $1 markaas aad ku iibsan kartid adigoo markaasi oo aad maalgashatay mid ka mid ah unit marka waxa baahan tahay experience waxa waaye ina aad exchange-da markaas fiat currency lacagta markaas adigu cash ka haysato aad ugu soo iibsato waxaa kaloo u baahan tahay marka inaad Coinbase oo kale aad ka iibsato ama aada kuwa kale oo la mid ah oo exchange-da ah markaas lacagtaada cash-ka ah aad ugu soo dhigin karto Bitcoin saa kuwa kale aad ugu iibsato qaybta saddexaad aan ka hadlayno waxa waaye aad dakhli ku samayn kartid waa big one 10% of all macnaheedu waxay tahay 10 ka mid ah lacagta markaasi oo adigu investing markaas aad ka fogaanaysan ama lacagtaada markaas aad lose garayso oo tusaale ay tahay $100 hadaa haysato $100 10 ka mid ah waxaa ku iibsataa alternative coinada markaas ka soo haray tusaale kale $100 hadaa haysato Ripple oo kale iibso maanta pricekeedu uu yahay $1 3 months later am 6 months kadib waxa laga yaabaa 1 Ripple inay noqoto maadaama $1 qiimeed aad ku iibsatay inay noqoto kale 3 bil kadib ama 6 bil kadib $5 haday noqoto marka waxa waaye 5 times $1 kaaga halkaaga dollar waxaa ku fuulay $4 ku furtay markaas aad faa'iideysan kartid inta kala soo hartay waxaa ku iibsan kartaa 10ka cryptocurrency markaas ugu sareeyo sidoo kale ay kamid tahay aan dhihi karno kale Cardano kale 0.4 oo kale waxaa kaloo ku iibsan kartaa oo kale Neo kale markaas potential leh iyo sidoo kale Dashcoin oo kale iyo sidoo kale Zcash oo kale kuwaas markaas ugu sareeyo kale Monero kuwaas markaas ugu faa'iideysan kartid waa marka $100 oo kale hadaad 10 ka mid ah Ripple aad ku iibsatay 10 kale aad ku iibsatay Zcash 10 kale aad ku iibsatay Monero 10 kalena Cardano aad ku iibsato after 3 months waxa laga yaabaa inaa profit aad samayso qaabkaas oo lagu faa'iideysan karaa marka hadii aad doonayso marka kuwa kale inaad iibsato first waxa u baahan tahay Bitcoin inaad hesho markaas kadib waxa aadi doontaa Congo waxa aadi kartaa Binance Exchange markaas aad iibsato karto kuwa kale la mid ah qaabka ugu iibsan kartaa kuwa inaad buy aad samayso adigu aad soo iibsato kadib marka adigu aad haysato kadibna aad iska iibin kartid tusaale kale Bitcoin Ripple kale ku ay pricekeeda 1 input oo kale 5 waxa exchange-gana aadi doontaa Binance waa iska iibinaysaa kadib waxa $4 ayaad meeshaasi profit aad ku heshay okay waxa kaloo kamid ah avoid analytic analysis waxa ka fogaata dadka markaas analyze gareynaya tusaale kale Bitcoin oo kale marka la joogo kale February waxay tagtay kale one Bitcoin 8,000 markay tagtay marka dad badan oo analytic ah waxay ku leeyihiin Bitcoin xilliga down ay noqonayso waaye
waxaa u baahan tahay marka inta bitcoin ay hayso kale inaad iska iibiso si hadhow priceka markaas uu yahay 8,000 oo kale oo u tago kale 7,000 aa loos u dareemin oo kale ka fogow atlantic pricekaasi sababtu waxay tahay bitcoin mar walba haddii markaad kan kala joogo fluctuation uu dhacaa oo volatile waa mar pricekii qiimihiisa hoos u dhacaa marna wuxuu u kacaa sare waqti xaadirka ay la hadlayna waa xilliga uu kor u kici lahaa maadaama uu kasoo kacay 8,000 iyo 9,000 oo u socdo 10,000 iyo sidoo kale 15,000 oo la rajeynayo at the end 2018 koo kale markuu dhamaado oo dib u noqon doono 20,000 waa midkaas marka aa u baahan tahay inaad markaas ka fogaato haddii markaas lacagta markaas aad maalgashatay aynan ahayn lacag markaas aad kusoo qaadato deyn aad markaas doonaysa inaad dib ku celiso marka qaar laga yaabo inaad avoid atlantic kaasi saameyn ku noqoto inta markaasi adigu aad maalgashatay in ka yar markay kusoo baxdo kale aad doonaysa inaad dib iskaga iibiso okay qaybta ugu dambeysa waxa waaye haddii aad macluumaad aad ka heshay please subscribe my youtube channelkayga saa macluumaad badan oo video aa u hesho cryptocurrency wax khuseeya leave me comment or sidoo kale share one of my friend waxaa la share garaysaa mid ka mid ah asxaabtaada bye okay haddii aad doonaysa marka inaad la soo xiriirto contact please facebook igala soo xiriir max efoger kaasoo markaas aad mac efoger max efoger kaasoo aad macluumaad badan oo information aad ka heli karto si aad ugu faa'iidaysan lahayd cryptocurrency waa la xiriira intaas ku arki doona peace